السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناقصين إذا هنتي ممل كستو جوجتا أم بكسر دوادا برنامج قارن ورئيس كل يلنا مد كمدة إذا مدي ويانا لدير كهاي شبه دودنيا حورين تا أوغادينيا أو مرتين نوجه برنامج كان وسلطان عبدي أحمد تري سودو نفته رسولان عنده نفته راد عنده أما هسمت هاي سيدا في عند نوجت ماضي نفته رسولان سلطان waa la yiraahdaa ilka casa waa la yiraahdaa kanshalladan waa la yiraahdaa bal waqtigii duurka saaxiibadaadii aad duurka wada joogteen magaceebu ahaa magaca loogu jecel yahay ama lagu yeedhin inta badan waa si fiican aad baan idin salaamayaa yow magacyo badan saas kale magacyada ay u badnaayeen oo nafta hore naxariis Allah si Cabdullaahi Yaasiin baa wuxuu dhihi jiray mararka qaarkood wuxuu dhihi jiray magacyo badan oo dhawaaqayo kale marka laakiin magaca halgameedka inta badan ahaa wuxuu ahaa kanshalladan oo xilli yar dhaxay baxay bilowgii macni marka yar ku laatay halkan ku dhaxay oo kale suldaalka casana waxa weeyaan isaguna taambo ahaa oo israaci jiray inta badan marka laakiin kanshalladan waa magaca hadda eegaan dadkuna aad u aqoonin laakiin nafta horeyaashii saaxiibada intii aakhir oo kacay faraha badnayd iyo inta joogtay baaqi aaba ay ku yaqaanaan نفتورة السلطان ما كشلدن واحد مدة بدن كتر سنة إذا ما دي جبهة ودينية حرين تأوغادينية وقت قلبك سيدي جبهة ودينية حرين تأوغادينية ها أورور لا أساسي وقت سهرة سنة بدا وقت دمبنا قرب هالجميع ما أنتنا شوفا أنتو يسبدل كوكا عاي ضد بدن با وحي سويديان أو الشيغان أو أنا لف وي صح راتي أما هدف كي كل كهر لو دجالمي يكتنازل شيء marka oo ana lafmii ka tanaasul hadafkeedii mise waa sidii ma taasoo ma ka tanaasul halganka onalif sababta u badan ee loo leeyahay hadda nooca loo dhaw waxa weeye macnaheedu qalin baa hadda lagu dagaalamayaa qorigi waa la joojiyay weeyaan iyo heshiis baa la galay ama gudaha la joogaa cadawgii la dagaalamayay oo qorigi lagu dagaalamayay baan soo qorigi lagu xoreeyay qalin la qaatay waa su'aalaha u badan ee keena لكن هدفكو متبوعها استانتون متبوعها مقعنا متبوعها حركون متبوعها وح أيلا هاي أون ألف أو حلقي بالله لا أساسي أهرسي إلا حدا وحلقة بدلي ما وشرو لكن مرحلة هالجنك معني مركي وحلا بالله بيو حبالوه أشياء الله قرطالو بالله waxaa la qortay markii wax laga bedelaa waxa la dhihi karaa hal qodob ka mid ah hadii la bedel lahaa waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan waa laga tanaasulay halkii qalinkan su'aasha badan keenay oo markii ku halgamaysay adiga oo dhalinyaro iyo anigu hadda joogo oo weyn oo oday iyo in kala fara badan mid meena ku jira qalin baa lagu bilaabay waxaana ku jiray oo ka mid ahaa astaamaheeda ama macnaheeda nidaamkeeda iyo xeerkeeda qalin iyo qori oo aragtida istalowsan saas kala marka qalin baa lagu bilaabay ku halgamaysay cabaar ku halgamaysay oo doorasho ku gashay oo iyada codkii ku heshay oo waxa weeye ay wadanka deegaanka calankii u sameysay oo dawladdu u dhashay wasiiradii u sameysay oo deegaanka hadda wixii lagu soo daray mooyaane qalin bay alif iyo dawlad ku noqotay kadib dibkii caqabadihii gumaysigii oo dareemay inuu qalinkanu ogaadeen iyo xoreynayo oo dagaal waxa weeyaan xabadeed in laga baaqsado halgankuna burburo qorshihiisu markii la qiimeeyo saas buu ahaa cadawgu markuu arkay isaga oo doorashada lagu guuleystay wadankan la maamulayo wixiina ka sii darayadii iyo dagaalka bilaabay marka gumaysigu dagaalkii saa ku bilaabtay waxaan marka timaaday dagaalkii Itoobiya la dagaalamay waa laga adkaaday wada geedin cid kasta oo alif jecel iyo cid kasta oo neceb labadaba Itoobiya حبدي لقى أتكلم واحد حبي أحي قالنكم مركز هذني ما دين قالن والوهل الجو وقالن كي هراء وقالن كي كتيري وحسب الزوج اللي ما هاي مركا تناسل أو نك ده ولا تناسلي ودي شكاوي كشكاوي عدو جاي معناه إن واحد لقى سهر الروا وكلوياني قال لي غرم بها مركي اللي بلابي قف كستنا سو قال لي غرم كسبيري كل بنا سيدا أي مركا la qiimeeyo inuu ku soconayo baa lagu way dagaalka mar waxa lagu galaa orod adoo ordaya xabada gidi marra
beer baad ku ridaa adoo gurguurinaya marna waxaad ku ridaa adoo fadhiya macnihii dagaalka kolba suu ku qabsaad ku galaysaa moogta marka halgan baa lagu jiraa kolba sida uu ku soconayo qorana oo xeerkii qoraa iyo nidaamkii qoraa ka mida unbaa lagu wadi xilligii wax ka bedelan ciddii keenta waa la dhihi karaa halkaasaa laga bedelayo way imaan kartaa markan waayahay ma jiraan markaa waxyaalo waktigii duurka lagu jiray qorigu uu socday la hayay oo hadda laga gaabiyo ma jiraan oo dadku uu is oran karo waxaasaa yaa keenaya ilaa dadka su-aashan waxbaa ka dhex keenaya marka ma wax laga gaabiyo waxaa jira ay awal hore la qaban jiray oo dadku eega ina arag waa su-aal fiican iyo weyn marxaladda markaa lagu jiro wax walba la qabsi buu leeyahay halganku haddii marra qori buu ahaa xabad buu ahaa marra qalin buu ahaa qof kasta wuxuu ku shaqeeyo ee uu shaqadiisa markaa bartay markuu shaqo uu kale uusan baranin markaa ay timaado in wixii wax ka bedelan yihiin wuu isu tusayaa wax waa laga bedelayo dee xabad buu ahaa xabad baa socotay ciidankaa hubaysnaa dagaalkuna wuu socday waxaa la galay waxaa weeyaan xabad joojin iyo heshiis Ethiopia oo waxaa weeyaan Addis Ababa lala galay dadkuna xabadda yaqaaneen waa la isu yimaaday raggii halgamayay ee maxaan ku dhahay dagaalka ku maqnaa ee wada maqnaa oo dhan waa la yimaaday magaalada su-aasha badan aniga hadda la weydiiyo waxaa ka mid ah markaan hoteelada joogno soodinka bunka cabaya meesha bunka nala cabaya soo kana aan jira xabasha wada cunayno soodinkan hoteelada ee caasimadaha iyo hoteelada iska joogaan la dhaamugta marka dadku wuxuu lahaa korjooga ragga halgamaya qaybna way maqnayd qaybna way dhuuban jirtay iyadoo isqarinayso dharcada iyo shaqada hoosta ka qabanaysa marka su-aasha u badan maadaama horta la wada joogan xabad soconin waxa weeyaan waxba isbedelay dadku leeyahay laakiin muhiimaddu waxa weeye halgankii ma socdaa mise ma socdo haddaan kugu daro su-aashu meeshu hadda gaadhay xilligii horeysa horta heshiiska la qaatay ee lagu dhawaaqay anugu dadka markaa u tamaryar yaan ka mid ahay moogtahay ururka haddana heshiiska markii la qaatay oo iga soo istaagtay ma jeclayn markaa heshiiska la qaato xoogaal baan u ahaa markaa ciidanka intuu leegahay yaraantiisa iyo qaabka iyo kala maqnaanshaha iyo wax fara badan markii la qaatay ay dhacday intii ka dambeysay waxaa yaqiinsaday qalinkana dama aqoonin oo xilligii qalinkan hore lagu halgamayeyna waan ka yaraa markan dambena qorigan baan aqaanay marka xataa markaa dambe waxaa iga go-onay hadduu qorigii fursad aan u helo dee qoriga xataa eega si toosaan uga shaqayn karaa moogtahay inaan qoriga mar kasta anigu aan qaybteeda ka qaadan karo aqoontiisuna aan leeyahay baa ii muuqata laakiin markii la qalinkii waan fahmi waayey qalinka qaabkee loogu halgami Ethiopia maskax xabado gashay leedahay maskax qalin seeba loo wadi armay waxba la dhaqaajin waay wax badan baa isweydiiyey hadda iyo xilligan weliba dhowrka sano u dambeeyey baan aad u fahmay waan ku faraxsanahay hadda inuu qalin ku socdo weliba muddo dheer waaya waa mahadsantahay aan ku siiyo tusaale yar baan ku sii raacin on alif xilliga ugu fara badnayd awadood ugu badnayd waxay ahayd baan malaynayaa 2010 2008 ilaa 2009 adigu 2007 wixii ka dambeeyey dagaalka eeba cadow la baxay dhagax madow iyo galadiid iyo la galay waxa weeyaan yucub iyo dhowrka goobood la galay isku habeen saacad 8 habeen la galay xilliga alif ugu badnayd mogta waxaa jirta xilliga dhul deegaanka ka mid ah ee ciidanka awoodda inta leeyahay alif u joogay dhul deegaanka ka mid ah laga dagaalamayo oo ciidanku u tagi waayay jiray caqabad jira awgood xagga shacabka xagga cadowga jooga dadka jaajuuska fursado badan laakiin hadda maanta ururku u gaaray calankii laga taagay xafiiska laga furay oo dadkii loo sheegay abaabulka la gaarsiiyey wareega dhan ee cadowga ku teedsan oo dhan si u dhan yahay waxaa gaaray halgankii xilligii xabadana cidhiidhi baa ahayd oo markii saa loo tago dagaal yar dhowr jeer dagaal ka dhacay inta badan way adkaan jirtay dagaalkii marka qalinka waxaa weeye meel kasta oo xuduudka ka mid oo Soomaali joogto oo ka shaysa oo ka midigaysa oo ka bidixaysa oo galbeedkii oo dhan buu gaaray hadda dadkiina buu fahmeen waa la gaarsiiyey
qalinkan iyo maxaan ku dhahay calankan iyo shaqadan hadda la hayo dad badan dhaliilayaan yaana gaadhsiiyey waxaa kaloo koomaashay cadowga meel kasta oo waxaa weeyaan uu xuduud aan ka sida hadda mooyaaloo kale ilaa iyo city ilaa iyo maxaan ku dhahay meesha la dhihi jiray tulguuleed dhulbeereedkii aad ogeyd oo dhan ee khayraadka ahaa marka hore xabad baa socoto mayna soo geli jirin Ethiopia mugta dhulkii oo dhan way soo gashay dagaalkii iyo colaadii way isla kululaatay dadkii xuduud ka jiro dhan wuu ciloobay mabaadiidii iyo qorshihii oo dhan dadkii dhalinyarada wax isla qaatay qalinkii dadkii cabsanayay xataa dhalinyarada ahaa ee ka caayay iyo dadkii maxaan ku dhahay wax kale looga sheekeynayay yaay boqolkiiba boqol full u gaadhay full charge ma maqli jir full charge bay u gaadhay macnaheedu jawxanimadu inay shay gobonimo doon oo qof kasta oo Soomaali asaga sharaf waa inay tahay iyo qof kasta fahmay waliba dadku wuxuu ka aqoon badan yahay ruuxa ugu aqoon badan baa ugu fiican qofka aqoon badan yahay iyo halganka uga jecel yahay ka dareemo og yahay mugta marka waxa weeyaan qalinku dad badan baa markii hore islaha waxa weeyaan waa qabow yahay anaba kamid ah laakiin waa sanafirisi waana la imaatinkeedii kadib shirweyna gudaha ka dhacay gudoomiyaha la doortay muddo kadib waxa soo baxay qolo sheeganaysa inay garab saxiitaan yihiin ay gudoomiye dhisteen gudoomiye kala dhisteen ilaa eega dhowr bilood ka hor ay dhisteen haddana ay dhaheen shirweynaan qabsanay gudoomiyaan dooranay marka ma laba alif baa jirta maya waa jirta laba alif hal alif baa jirta hal urur gobonadon kana ka sheekeynay kii la yaqaanay aan baa jira laakiin waxa jira shay kasta marka original yahay koobi badan baa laga qaataa waa dhixirada waxa ay saddex qolo waxa haysataa saddex qolo dib baa haysta baa mugta ururka wanalif shariifta alabeedka culimada sunniga saddex baa dib baa haysta mugta waxaad arki wadaad shariif oo bahalkii iska la xaadsanayo iska yar muqayiraho meelahaas ku yarsaa gooy asagoo socdo markaas inta masaajidka isaga dhig shariif baan dadku shariifta way jecel moogtay waa dad arabeed oo ila jacalana waa diiniya markaas oo iska sheeganayso uu sahayda go'a dhexda uga talaabo ama qaabka yar waxayu shariif baan ahay oo shariif ka saab dadku ma garanaysa meel walba markaas shariifta arabeedka saxdo siyaara caadi iyo maxaan ku dhahay wax loo gartay iyo xurmo iyo sidii caadi ah mooyaan barnaamijka aad ma sameeyaan marka wala iska wada sheegay shariif dib baa haysta hadii oo laba magaciiba original oo alabeed moogta waa la dugsanaya culimada sunni nin kasta ku go'do shariif baan ahay shariif uu ku go'do meel axmed ku maraysi oo saay u seeyo culimada sunniga diinta waa hal mid 70 iyo intaas farqaana jirta waxa weeye marka midaas saxda ah sidii loo wada sheegto mid kasta wuxuu dhisin anigu sunni ma ana sunni ah وقرنا هذا والله كان بدون أنت كلامنا ما فرقوي إنه هؤلاء وطن فربضن لكن سني جالسوا عمدي سحرة هاي أورتينال كهاي عند الله شاكتو إذا نحبا كل دقائق متكستوي هرسون والجماعة وهرسون والجماعة أنا بدي وحوي حالة السنة بالكيو فايدة إذا نبي هايست هاي وحي أنا كلام نبي هايست أنا وأرجو من هدونا وألو شرف طبعا كنتي dhaqanka ururka oo alif marban hadaaleed mooyaan ka sheekayn doonaa oo ururgoyn wadoona aad u sharaf badan qof kasta oo macnaheedu Soomaali ah ay og tahay sharaftiisa kii xataa aan maanta ogeyn bariibo ogaani waxay ugu maqan tahay waxay tahay oo degaraadka hoos u yar dhigaya marka mar walba marka waxa weeyaan cadawgu wuxuu isku day inuu sameeyo koobi oo alif oo waxa weeyaan deedna qaabkaas oo koobiga oo alif weeyaan magacii oo magacii waa la wataa waxa weeyaan magacaas lagu hawlgeli oo la sameeyo oo cid la doon marka hala saaro mar qaar shacab la ururin mar waxa weeyaan rag dad oo alif la diyaarin mar dii la doono waxa laga dhigi Ethiopia ma dal raba laga dhigi adigu magaca muhiim ah in la sheegto astaantana iyadana waxa weeyaan waa astaantii gooni wadoono iyadana marka waa la qaadan marka
kuwa kale hadda ka hor baan ka sheekeeyo way gambaangeliyey gumaysiga tabcada uu mar kasta kuwa la dagaalamayo ee ugu dhib yar buu samayn saad sheegaysa shirki goday intii kadib shirki goday waan joogay hore iyo dib ururka ona fitan ka mid ah maalin iga walbahaar badneed goday ima soo maray hore iyo dib ima soo maray maalin goday iga walbahaar badneed sababtaa intii hore oo alif ku jiray ninku qofku markuu xoog leeyahay waxaa dhaanta baa ninka xoog leh anigu duciyaha martan oo baahan dhalinyaro dhamaan marka qaarka 20 jir waxa weeyaan qori buuri 3 sano wato ilaahay bisan baa u baahan tahay waxa weeye waa wixii ka hor yimaada caqabado badan oo soo maray xilliga ma aynan waxba iga bedel laakiin ururkii markuu yimaaday gudihii oo heshiis qaatay doorasha la qabanayay gudii la isugu geeyay munaasib ma ahayn xilli aan munaasib ahayn oo markaas ku haboonay baa moogtay la isugu geeyay oo gudii la isugu tagay cadawgii Itoobiya ee guunka ee la dagaalamay oo jaajuuskiisii oo dhan oo fursad helay wata na la isugu keenay lacagta deegaanka taagan intii badneed oo dhan la soo kulaaliyay lacagta xataa la kulaala moogtay dabka bas lama kulaalo haddii adoo yar baa haysan aad meel lacag badan aad ku tumisay ama aad aragto oo iska yar ag fadhido hadii kulaal baa leedahay moogtahay oo halkaa lacag baa ku yahay waa tuun baa kugu jira moogtahay kala uumigeeda kugu soo baxay kulaal baa wala kulaal lacag tiftiin marka lacagtii waa la kulaalay xataa oo la keenay qorshaha ay qaatay ciddii og iyo ciddaan ogeyn waxay ahayd goday shirka goday oon alif dambe oo ka dib u shaqaysa inayna imaan halkaa in la isku qabsado la isku haysto si la soo haysto waqtigu dhamaado dhaqaalo dhamaado kharash la isla burburo deena la dhaho ballan ma loo qabto ururka dhaqaalo ururin waana la iskhilaafsan yahay dogo bas yaa dhaqaalada masuuliyiin yaa qorshe kale sukan wax la dooran sidii baa lagu soo booday qorshaha la watay ee adoogu diyaariyay adhisaba diyaarisay ee deegaanka ay soo wakiilato kaas buu ahaa kiina rabbiga casaa wajalla yaa badbaadiyay laba nafto hore la soo diyaariyay labadaba waa la dooranayay codka kii kow laba la wixii iyo ku dhacay xilligaas hal mid doorashadu ay qaaday waqtigaas marka waxa weeyaan iyo fashilantay qorshaha aan cid la dooran ma leeyahay meesha la moogtahay maxaa marka meesha la doorashadii dhacday la rabinay dhacdo lama rabin dhacin bal rabay Soomaa doorashadii markay dhacday cadawgii hawshaas ka soo Soomaa maxaa la sameeyay waa in qorshe kale la sameeyo dagaal kale la sameeyay hadda markaad cadow saaysan ee shiisha aan xabada maanaad qaadato salaha inta badan xabadan ku soo qaata kolkaad mar iyo 2 iyo 3 ku rid ruux kasta wuxuu yaqaano wuxuu yaqaanaa markaad mar iyo 3 iyo 2 ku rid ee la weydo waxa weeyaan afarta midhay hore rid bartay mareen inayna kuwaaga dambe marin xabada maraad isku day xabada dambe wad ka duudo oo marka dambe meel bartanka kaga dhufato shaadarteed wuxuu cadawga Itoobiya qaatay mar haddii doorashadii la qabtay gudoomiyaha la doortay waliba nin waxa weeyaan de aqooyahan oo khubaro aasaashi kamid ah iska ruug cadaa ah waxa weeyaan aan hadda geed intuu dhalinyaro ka booda xataa aan la dhigi karin yaa la doortay nasiibku macnaheedu soo baxay moogtay waxay qorshe qaadatay in laaf in la helo mar walba waxa weeyaan gabareeshin haysta garab macnaheedu haysta ururka dhaxiisi ahna in la helo marka laba marka loo kala qaado saaxiibadayda marka hadda aad su'aashooda iga weydiisay laba magac aan bixiyo laba magac bay kala leeyihiin danayste iyo daacad hadafta danayste weligii halkan kugu soo jiray soo raaci abaar buu kula joogay kula halgami kula waxaysmi inta kula joog waxba kula qabani inta yar baa ilaahay haduu doono kugu soo xijiyay aad boortna dhigi jiray wuxuu dhigi jiray oo aad loo yaqaan qorraxay ka bax yaa wuxuu dhigi jiray war halkan ilaahay ugu soo xijiyay inta in yar baa la joogay inta la joogay ka faa'iideysto dhigi jiray mar badan baan ka maqlay oo yaa hawlgali jiray markii dambana intuu xarooday inuu boos ku dhig marka danayste marka weligii uu jiri jiray dantu doona waxa la ahaade cadawgana waxa weeyaan inuu ku noqdo raba ama la shaqeynayo daacada daftayna waa qof halganka iyo gooniyadoonku ay ka dhab tahay jecladii qaba inuu wadanku xorooba raba saaxiibadii iyo qorshihiina aan ilaaweyn laakiin
wax ka yar waxaysan yihiin oo tashuus lagu furay ama qaab wax yar garan marka labadaas markay bay kala ahaayeen tashuuskana waxa badan keenay su'aasha markii hore ay weydiinaysa ahayd halgankii intii gudaha la soo galay meel laga tanaasulay ayadoo kale marka xabadda la joojiyay 10 badan oo la fahmaynin baa soo baxay marka dadkaas marka ragaasaas daacada haftee waa rag la jecel leh waxa weeye hadda eega maalmo dhaweyto rag hadlayo naftoorayaal ah waad maqlaysay iyo xubno iyo oo kamid ah marka hore aad baan horta ugu mahad celinayaa ragga saaxiibada ee naftoorayaasha ee xubnaha ah intay xaaladii arkeen meesha gashay marka hore meena arkeen meesha galayso laakiin marka dambe arkeen meesha gashay tageen dib u soo noqday aad baan ugu mahad celinayaa oo soo dhaweynaya waliba daacadii aan kula daacada laftadii bay kamid yihiin kuwa badan oo daacada laftadaas kale oo waxa weeyaan xaaladahaas ku jiraan way jiraan oo insha Allah daacada laftada dhan adii xaqiiqada marka ogaatay iyagu halgan bay rabeen soo garanaysa halganku bartu gala way la geli tanaystoona waa dad dhowr ah kooban ma garanaysa marka danaystahaas Ethiopia iyo kilalka iyo adigu cadowga is xambaarsan ku xidhay anu isba colaadeed oo badan waa Ethiopia Burleed qolan deegaanka aad uma waxay moogta marka kuwaas ku xidhan yahay waa danayste wuxuu rabaa halganka inuu ka dambaynin ama wasiir ha noqdo ama madax kale ha noqdo ama guriyaha iska helo ama gaadhaha helo halgankan intii hore uu soo marin uu qoomeysan yahay inta dambana hadda wuxuu rabaa inuu lacagna helo guriyana helo gaadhina helo bisaas ka waxay waa danayste magacii ku danaysanaya waana cidda macnihii loo soo marayo xariga la soo tuurayo uu soo dhex tuurayo marka dambana dib laga jiidayo weeyaan marka barnaamijka marka waa saas weeyaan waxaan rajaynayaa ururkan xaalado badan buu leeyahay oo soo marayo oo wax ilaahay wato subxaan qaadirka wata wax badan oo cidhiidhi oo halkaas oo kala iyo ka bax oo ka bix ilaahay idinkii waliba bishan barakaysan hadda mooliso ma joogno bisha barakaysan filigeeda iyo xilligan waqti dhow waxaad arki doontaa hal wado oo kiisaas oo ku wada dhacay waxa weeyaan qof walba intuu dareemay sidiisii oo cabir buu leeyahay halganku cabirkiisii uu qabsaday xeerkiisii iyo nidaamkiisii iyo qorshihiisii uu qabsaday hadduu wax dhaliilayo qof wax diidan yahay oo wax yar tabaya xataa asagoo agaf tahay inuu farta ku fiiqo wixii dhaliila marka waa sidaa weeyaan